moogtahay inay tani tahay sababta aysan guryaha dalka Mexico u burburin xilligu dhaca dhulgariirku. inta badan guryaha adduunka waxaa laga dhisaa dhagax amba alwaax kuwaasoo waqti kadib dilaaca amba duma, laakiin dadka qaarkood ee ku nool dalka Mexico waxay isticmaalaan habkan ka duwan. waxay ciidda ka buuxiyaan jawaanadaas ayay isdul saarayaan iyagoo isku duraseynaya, kadibna waxay iskugu xidhayaan siliig adag oo way ku geejinayaan. markii intaas noqoto derbi adag oo kale, waxaa korkooda laga marinayaa lakab ciida oo adag. habkan dhismaha ahi wuxuu u adkeysan doonaa dabaylaha xooggan iyo dhulgariirada iyadoo oo aanay guryuhu si sahlan u burburi doonin. intaa waxaa dheer, guryahani waxay gudaha ka yihiin qaar qabow xilliga xagaaga, taasoo la mid ah sida adigoo qaboojiya isticmaalaya iyada oo aan loo baahnayn wax tamar badana amba laydh badana. waxaanan dhihi karnaa waa dhismo raqiisa, adkaysi leh, misena deegaanka u roon. haddaba daawade, adiga su-aal haddii aan ku weydiiyo, fikraddan cajiibkaa sidii ayaad u aragtaa? qaybta kommentiga ee hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto youtube-ka iyo facebook-ka profilka saaranna aad subscribe dhaado.